horumarinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda deegaanka Soomaalida Xasan Faarax Cali ayaa ugu dambeyn gabadh Soomaali ah oo xafiiskiisa ka shaqeysa shaqadii ka eriyay kadib markii ka diiday inuu dhaqan xumo galmo ah la sameeyo oo uu xaaraan kula seexdo isagoo dhowr jeer oo hore wasiirku digniino hawshaas la xidhiidha oo uu hanjabaad uga dhigayay gabadha iyo way ku yeeli hore u siiyey arrintan waxaa la wargeliyay wasiirka xafiiska madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida Xasan Daadi oo wadaadnimo iyo inuu nin diintu ku fog tahay sheegta balse meeshuu tallaabo ka qaadi lahaa wuxuu isku dayay inuu si hoose iyo xeer ku dhameeyo sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xafiiskiisu runtii arrintan ayaa ah dhaqan xumo tii ugu xumayd ee mas-uul wasiir sheeganaya uu kula kaco gabadh Soomaaliyeed oo weliba shaqaale hoosaadkiisa ah waxay liddi ku tahay diinteena islaamka iyo dhaqankeena suuban waxayna sharaf dhac iyo bahdil ku tahay sharafta gabdhaheena Soomaaliyeed waana nooc kufsi ah oo danyarnimada dumarkeena la rabo in looga faa'iideysto in jidhkooda shaqo lagaga bedasho waa dhaqan xumo aad u falxun tacaddi kufsi ah waxaa gudub diimeed iyo mid dhaqan iyo weliba ku tumasho cirdiga dumarkeena sharafta badan ee xurmada naga mudan arrintani keliyaha kooxda maamulka haysa sharaf dhac kuma aha ee waxay sharaf dhac ku tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee caalamka iyo gaar ahaan kuwa deegaanka iyo inta diinta islaamka ku abtirsata ee u nasab sheegata ma aha mid horey looga yiqiinay deegaanka ee waa arrin ugub ah in gabadh shaqaale hoosaad ah shaqadeeda uu wasiirkii maamulayay ku xidho galmo xaaraan ah aan kula sameeyo haddii kale shaqayn maysid wasiirka madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida ee Xasan Daadi haddii uu arrintan ka damqan waayey tallaabana ka qaadi waayey waxaan dhihi karaa wuu la ogyahay kaaliguna uga yahay in wasiir uu isagu xukumo uu ku tacadiyo gabadh Soomaaliyeed oo shaqaale hoosaad ah waxaase xaqiiqo ah in haddii uu wax ka qaban waayo wasiirkiisa gabdhaha Soomaaliyeed kursiga uu la badheeraya inuu Xasan Daadi hortiisa ka heli doono oo berri gabdhaha uu dhalay ay ku dhici doonto cuqubadan uu ka aamusay maanta waxaan ka codsanaynaa xukuumadda gaar ahaan hay'adaha amniga laamaha sharciga sida kuwa sharciga islaamka waxgaradka aqoon-yahanka dhalinyarada iyo hooyooyinku inay arrintaas ka damqadaan ninkaasna sharciga la hor keeno gabadhuna ay xuquuqdeeda lagu gafay hesho Xasan Faarax waxaa la ii sheegay in xilligii Cabdi Ilay isagoo guddoomiye degmaha falkan oo kale shaqadii looga eriyay kadibna uu Addis Ababa fadhiyi jiray dhinaca jarna uu ku soo qaatay xukuumaddii hore mucaarad ku ahaa waase caadaystay falkan ku caanbaxay haddii kaas sharciga la waafajin waayo gabadhuna xaqeedii oo shaqadeeda ah ay heli weydo dhammaan mas-uul iyo shacabba gabadhiisay berri ka jaran tahay oo ay sidani ku dhici ee xaq ayaan laga waabanin doorashada Itoobiya ka dhacday shalay ayaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba looga arkaa mid ay qabsadeen shakhsiyaad danaystayaal ah oo kaga gabanaya cadaadiska caalamka ka haysta waxay u eg tahay mid aan loo diyaar garoobin qurbaagadi ah oo shakhsi jahawareersan uu isleeyahay kaga naso cadaadiska beesha caalamka oo bilahanba ku dhagan bal inay kugu dayso ma aha mid uu caalamku aqoonsan yahay haba yaraatee mana jirin goobjoogayaal caalami ah oo qayb ka ahaa doorashada oo midowda Yurub horay ayay u qaadaceen una joojiyeen dhaqaalihii taakulaynta ee dhaqdhaqaaqyada doorashada ee Itoobiya kaga caawin jirtay iyo midkii gargaar iyo caawimaad ee dhanka horumarinta labadaba sidoo kale waxaa miisaaniyadii horumarinta iyo tii amniga ka jartay dalka Mareykanka iyo dunida kaleba iyagoo u sooreeyay tacadiyada iyo gabadfalada bini'aadanimada ka baxsan ee xasuuq isirsifayn macaluul dadsame ah iyo gumaadka dambiyo dagaal lagu sifeeyey ee ka dhacay gobolka Tigray isla markaana uu taliska Addis Ababa ee Abiy hogaamiyo kaga dhaga adeegay talooyinkii beesha caalamku u soo jeediyey ee ahaa inuu dagaalka gobolka Tigray joojiyo ciidamada Eritrea ka saaro dalka xaaladana ku dhameeyo wada hadal nabadeed ugu dambeynse sababtay inuu Mareykanku xayiraad dhanka socdaalada ah uu ku soo rogo hogaaminta Itoobiya ee rayidka ah iyo kuwa ciidamadaba kadib markuu awaamirtoodii diiday haddaba marka laga yimaado arrimahaas beesha caalamka doorashadii shalay ka dhacday Itoobiya waxay u muuqatay mid mala awaal ah oo iska samee ah lagana diyaar garoobin waxaana daliil kugu filan sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Itoobiya Marwo Burtukaan Madaksa
inay jireen goobo ay ka go'een waraaqihii codbixintu iyadoo khaladkaas ku sheegtay inuu ahaa mid ka yimid dhanka sanaaduuqda oo sanduuqyadii loogu talagalay 100 xabo ayaa waxaa dhacday bay tiri in laga helay 50 xabo waana khalad ka yimid dhanka madbacadda goobta ugu daran ayayna ku tilmaantay deegaanka Benishanguul waxayna intaas ku dartay inay cod iyo dhulba adeegsanayaan oo degdeg goobahaas ku gaarsiinayaan waraaqahaas ka go'ay waase xilli ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen Marwo Burtukaan ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan dhibaatooyin loo geystay xubno musharaxiin mucaarad ah iyadoo goobaha dhibkani ka dhacay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin deegaanka Axarada iyo deegaanka Shucubaha Koonfureed waxaana ka wadnaabay tiri goobahaas baaritaano dhanka kale hawa ayaa sheegaya in 9 goob doorasho oo magaalada Addis Ababa ka mid ah in shalay subaxii uu la waayay halwadayaashii ku qornaa oo aan la furin kadib markii laga war helayna shaqaale kale la geeyay codbixintuna ka bilaabatay 8:45 daqiiqo oo subaxnimo halkii uu qorshuhu ahaa inay codbixintu ka bilaabato 12 subaxnimo sidoo kale magaalada Addis Ababa waxaa hal goob doorasho ku tartamayay Dr. Burhanu Naga oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Zema iyo Marwo Adaanajo xisbiga talada haya ee BB ka sharaxan haddaba waxaa shalay dhacday inay isku bedelmeen waraaqihii xaafadda ay ka sharxanayeen Dr. Burhanu Naga iyo xaafad kale taasoo muddaha kasii codbixintii waxaana saacado badan oo ay goobtaasi taagnayd kadib la kala bedelay waraaqihii ilaa ku dhawaad 4 saac kadibna la bilaabay deegaanka Sidaama oo la rabay inay shalay codbixintu ka bilaabato maanta ayaa dib loogu dhigay kadib sanaaduuq la'aan iyo warqadihii diiwaangelinta codbixiyayaasha oo la waayay waxaysan doorasho ka dhicin gebi ahaanba deegaanka Tigray deegaanka Hararida deegaanka Soomaalida qayb ahaan deegaanka Benishanguul iyo goobo ka mid ah deegaanka Axarada iyo Oromada oo 3 bilood kadib loo ballansan yahay in doorasho ka dhacdo sababo lagu sifeeyay amni darro iyo waxisdabamarin kaararka codbixinta ah deegaanka Oromada ma jirto cid xisbiga talada haya ee BB kula tartamaysa oo xisbiyadii mucaaradka ee deegaankaasi horey bay u qaadaceen doorashadan kadib markii la xalay hogaaminta xisbiyada mucaaradka ee deegaankaas welina ay xidhan yihiin Abiy Ahmed oo laba qoraal oo daqiiqado kala dambeeyay soo dhigay ardaygiisa Facebook oo isugu hambalyeynayay inay doorashadii nabadgelyo ku dhacday ayaa degdeg uga saaray markiiba taasoo ku tusaysa markhaatina ka ah madowga iyo kalsooni darrada meesha ka jirta guud ahaan ilaa xalay habeen markii doorashadu waa socotay waxaana guddiga doorashadu sheegeen in 3 saac oo keliya lagu daray halka ay ilaa farbarkii ka socotay doorashadu goobaha qaarna ay maanta ka socoto si guud ma dhicin xataa wax mudutul ama humaag doorasho eeg haba yaraatee wasiirka gaashaandhigga ee dalka Suudaan Jeneraal Jamaaludiin Cumar oo hogaaminaya saraakiil sarsare oo militariga dalkiisa ka mid ah ayaa booqasho degdeg ah xalay kaga degay magaalada Qaahire ee caasimadda waddanka Masar xogo hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in wafdigan Suudaan ay hogaaminaya wasiirka gaashaandhiggu ay wada hadallo culus la yeelanayaan saraakiisha ugu sarreysa militariga waddankaas Masar arrimaha ay ka wada hadli doonaan saraakiisha labada waddan ayaa la sheegayaa inay ugu weyn tahay xiisadda biyo-xidheenka weyn ee Itoobiya iyo tallaabada la gudboon inay qaadaan haddii Itoobiya ay bisha soo socoto bilowda buuxinta wejiga labaad ee biyo-xidheenka iyadoo aan weli wax heshiis ah laga gaarin arrinta biyo-xidheenkaas